waxaan markana jeclahay anigoo sharfaya wada weynaynaya kulankan alla qaayo weyna oo qiimo badana oo ruux biyo macaan uu siiyo soo xaadira kulankan quruxda badan waxaan markana jeclahay inaan cibaahiyaha kusoo dhaweeyo si uu kelmada kaga aadan xuska shiiqayna sheekh cabdulqaadir jaylaani uu nala wadaago wasiirka iyagii wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kana mida xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya haatanna ah musharax kale oo xilka madaxweyne oo ahlu sunna sheekh cabdulqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi soo dhawow sheekhayaga fadhiida soo allahu akbar allahu akbar allahu akbar فلتفضل الشيخ عبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وحا شرف يو عزو يقيمة إيه ما أنت هنا قصة شرفت طبعا اللغو معموسة حفلة سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني حسكي سياه وحانا ماشان اسكو يمد كمانان أهل طريقة أو طريقوينكا قيبه هذا كالدوان النسبة شاكتا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وايو طريقة إدريسية لفتركادو أسانيد هذا السنة كميدة باوحو قلاه أو سنة سيدي أبا حسن الشاذلي النسبة شاكتا عبد السلام بن مشيش أبا مدين الغوث سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ساس درت يتبع طريقة إدريسيادنا أي كم من نقونيسا طرق النسبة شاكتا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني مركا وحان ضمان وهم بليينيا كسوقيب قلياشا إن يمادين مناسبات قيمة بدن أو شرف بدن دنبيغينا نلقو دافيو إلهينا نقو أقبليو كلان كان مرحلة دلك ومرأيو أوغاد وحان رجينينا دلكنا إنيسان عرادي كدعين إلهي بان نكبرينا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه توصلينا إني أباري الطوفان يدباتو أيسان كدعين وحي جيرانا على نقدر القاضو قلوب الصومالي دنا إلهي ويسكو دمو waxaan rajaynaynaa dalku inuu aadi doono waddo toosan oo uu mari doono waddadii uga samata bixi lahaa burburka colaadaha faqriga jahliga kala qaybsanaanta iyo tafaraaruqa waxana weeye gacantiina ayay ku jirtaan rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi laa takuunuu fii ardikum dayfan dhulkiina iyo guryihiinna martiha ka noqonina marka dalkiina qaadiriyoy ahlu dariiqow ahlu tasawufow oo yacni 1000 sano islaamku intuu soo jiray ilaa maanta aad iska soo dhaxasheen oo silsiladiinnu ay nebi moxamed ay ku xiran tahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi ee awoowayaashin iyo aabbayaashin ay idinka dhigeen dalka keliya ee boqolkiiba boqol muslin ah boqolkiiba boqol isku caqiido oo ahlu sunno ah boqolkiiba boqol isku madhab ah boqolkiiba boqol isku qowmiyada oo aan la soo dhexgelin oo ay dhinac walba ka difaaceen almawruuth athaqaafi cultural heritage-kiinii yacni dhaxal dhaqankiinii diineed inaad ilaalsataan adinkaa laydinka baahan yahay waadna ilaalsateen markhaati waxaan ka ahay magaaladan muqdisho oo aan joogno oo awliyadii ilaahay aasaartoodii la zuulinayo oo qubuurahoodii la faagayo inay ahlu sunna wal jamaa ahlu tariiqa ay u kaceen makal mukarrama ayada xabada la dhaafin lahayo shabaab meeshan joogno uu haysto markhaati baan ka nahay dawladda Soomaaliyeed markhaati bay ka ayadu waxba dhaqaajin wayso amisom ay hor taagan tahay ahlu sunna makal mukarrama ka dejisay markii la arkay macnahoodii markii la arkay oo maxaan ku iraahdaa qiimahoodii la arkayna waxa lagu khasbanaaday taliskii ciidanka in loo dhiibo markaas dhaga badan iyo
cabdulqaadir sheekh cali diiniye loo dhiibay markaas bay dadkoodii aruursadeen maalintaas baa ugu dambaysay meel dalkan laga xoreeyo gobollada dhexe hadday noqoto ayagaa xoreeyey hadday gadaya maxaan ku dhahdaa noqoto ayagaa xoreeyey qaxootiyada kuwii laga soo aruuriyey ee 2,000 wiil ee ahlu dariiqada ahaa ee gaandi ay soo aruurinayeen iyo 300 oo maxaan ku dhahdaa xamsha xamadow uu hogaaminayay baa Kismaayo ina xoreeyey meel kamida ilaa bay dhabo kuwa xoreeyey waa armiye iyo waa joogan raggii bakool dabajeexyadu ay ku xirnaayeen waxa weeye marka Soomaaliya inta nabadda ah waxa xoreeyay ahlu dariiqa xoreysay taxta madallati dawla ayagoo dawladda Soomaaliya dalladeeda ku jiray waayo ahlu dariiqo mar walbaahi waxay garab istaagaan oo ay garab taagan yihiin dawladnimada Soomaaliya waa grassrootkii waxa dawladdu ka burburtay waa ayaga waxa dadku ka dayacan yihiin waa ayaga waxa dhibka ku dhacay ee mu'amaraadka loo qooshayahay waa ayaga waxa weeye marka waa maxalliyiin wadaniyiintii rasmiga ahaa waxaan marka dadkaan aan ugu bishaaraynayaa in intaan hadday isaysatay iyo kumanaanka ku xiran oo uusan hool kulmin karinin inay dalkooda wadadii ku habbooneed qaadsiinayaan bisayidi sheekh cabdulqaadir jaylaani fadligiisana dariiqiisa ay ku noolaynayaan tusaale yar baan u soo qaadanayaa dadka ahlu dariiqada ahi waa dad geesiyaala waa dad qiyam iyo akhlaaq badan sayidi waxaan soo qaadanayaa dariiqa alqaadiriya rijaasheeda waxaa ka mid ah oo ramsi ah oo taariikhdu taqaana gaal iyo muslimba ku qoran salaaxudiin al-ayuubi salaaxudiin al-ayuubi wuxuu ahaa 800 sano kadib ninkii xoreeyay baytulmaqdis dagaaladii uu galay waa la ogaa ninka iskugu darnaayeen rishaarda ninka la yiraahdo boqorka ingiriiska ee qalbul asad loo bixiyay ee geesiga ahay nabiilka badnaa caqliga badnaa buu ahaa ninkaas asaga mu'amaraadkiisa iyo caqligiisa iyo nooc walba waxaa igaga sarramaray buu yiri salaaxudiin al-ayuubi wuxuuna siiyey markuu jabay kadib milad ingiriis xilligaas uu qaalisaneyd buu salaaxudiin siiyey wuxuu yiri ninkaas geesiga ee xaniinka aban siiyey maxaa yeelay nin kula diriraayo waa xanuunsanay aad baa u xanuunsan nin kula diriraayo furin adoo ku jira takhtarkiisa ku soo diray inuu ku daaweeyo salaaxudiin al-ayuubi rishaarda wuxuu u diray takhtarkiisii rishaarda markii dambana waa intii la qabtay waa la soo sagootiyey xujaydii kirishtanka u socday baytulmaqdis oo kaniisatul qiyaama u socday inta kirishtanku meeshu haysay wadooyinka qudaacu dariiq baa joogay waana la leynayay markay laabtaana yurub laabtaana jabhadihii kala yaacay baa meesha ku leynayay laakiin salaaxudiin al-ayuubi markuu qabtay way uga nabad badnaatay wayna uga xorriyad badnaatay wayna uga qiimo badnaatay sidoo kale qiimaha qofka qaadiriyada baan idin sheegayaa salaaxudiin al-ayuubi takhtar waxa uu yani wasiirul balaaq wasiirkiisa caafimaadkiisa wuxuu ahaa Muusa bin Maymuun yani talmuudka yuhuuddu hadda ee ugu dambeeyay fershinka ugu dambeeyay ninka qoray Muusa bin Maymuun buu ahaa oo jaamicul qarawiin oo Marocco ka baxay faas uga baxay Muusa bin Maymuun muxuu ahaa jaaliyada yuhuudda mas'uulkeeda ila yuhuuddu jaaliyaday ahaayeen shataad bay ahaayeen diaspora ahaayeen ninka marka mantiqada islaamka yuhuudda joogta madaxda u ahaa Muusa bin Maymuun wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka ee salaaxudiin al-ayuubi waxaad meeshaas ka dareemaysaa geesinimada iyo qiyamku inay aadanahoo dhan gaal iyo muslim diin walba uu haysto ay kor kugu siqaayso qaadiriya ma aha dadka iska laaya dad bireeya ma aha dad macna darro u dila ma aha gaal iyo muslim wuxuu ahaado waxay aaminsan yihiin calaa dahrihim dhabarkooda inay insaaniyaddu ku taagan tahay khilaafatullaahi fii ardihi wakiilka ilaahay koonka u joogay inay yihiin bay aaminsan yihiin ظالمين تيضغط إلى الدريريان حرية يقيم كأمضاه هجامنايان وحي نقونيان أي تاريخ ذا يكسو أهايان عبد الكريم الجيلي عبد القادر الجزائري رجل محنكو إلى هذا عالم الإسلامي كسو يعوض الدريري حلي وحرية دونكا وادقرانيسان في شرقها وغربها إلى ميلكست إندونيسيا وحوى مركز دادكاس أيقا مجد قودي إشرف تودي قيم قودي بعد قادريو يحنبار سنتين تاريخ بعد أدونك كل هذين سوماليا تاريخ كل هذين دلكينا يددكينا ما أنت يدين باهن برين يدين باهن دلك يددك يدين تقف كمركل دارين أيه وحي والله يقول إنان كاش محنكور هذا أن أقول تحلك السي تعالى أو دنت دلك يددك يدين تبكجرتو ددك وادينك
dalkiina waa kan diintuna waa diinta islaamka ee shaaficiga ee ashcariga ee sunniga ee daraa'iqda suufiyadu ay hogaaminayso way oo qofka ku dhaaranayo qofkii raba inuu dalkan hogaamiyo laazim yuraaci al-mawruth thaqafi hadi al-umma qofkii raba dalkan inuu hogaamiyo waa inuu ilaaliyaa dhaxan dhaqameedka ummadeed ee Soomaaliya ay leedahay diinta uu ku dhaartayna waa diintaas ayada marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin dastuurkeena iyo andimadeena dalkeenuna waxay waafaqsan shariicada islaamka iyo diinteena bunuudda ay ku wada qoran yihiin maqaasideeda marka qaadiriyo sidaas baa maxaan ku iraahdaa aad u tiin majdigaas sharaftaas dadka iskale xafladahan iyo kuwa la midka ahina waxaan rajaynaynaa ilaahay kulankan iyo ijtimaacan fadligiisa saxaabu rahma ummadeena inuu ku da'iyo duufaanada iyo dhibaatooyinkana ka dulqaado ducadii culimada ayaa noo haya waxaan doonayay kelimadaas inaan iraahdo aad baad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh